kusoo dhawaada warka galab ee caasimada TV fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar ee furo gambaleelka si aad ula socotid wararkii ugu dambeeyay waa galab Arbaca ah taariikhda ay ku beegan tahay 16 bisha 9aad sanadka 2020 qodobada maanta aan idin hayno waxa kamid ah ciidamo ka tirsan hay'adda NISA oo ka cabanayay mushaar la'aan oo xirtay wadooyinka magaalada Muqdisho shirka Villa Soomaaliya ka socday oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka qaarkood ay isaga baxeen iyagoo careysan maxay tahay sababta xilka looga qaaday wakiilkii al-shabaab ee gobolka Shabeellada Dhexe xogo dheeraad ah ayaan idinkaga hayaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dalab cajiib ah hordhigay waxgaradka siyaasiyiinta mudulood qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka caasimada TV fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar like saar siina share garee muuqaalka warkii oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan hay'adda NISA oo ka cabanayay mushaar la'aan ayaa xirtay wado muhiim ah oo ku taala magaalada Muqdisho ciidan ka tirsan hay'adda nabadsugadda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa maanta sameeyay gadood ku saabsan mushaar la'aan iyagoona muddo saacad ku dhow xirtay taalada daljirka Dahsoon ee degmada Boondheere ilaa isgooska Jubba ee magaalada Muqdisho sida ay wararku sheegayaan ciidamadan ayaa ahaa kuwa bilo ka hor tababar ku soo qaatay dugsiga tababarka ee General Shirbow ciidankan ka tirsan nabadsugadda ayaa saldhig ku lahaa garoonka diyaaradaha Dayniile halkaas oo hay'adda nabadsugadda ay geysay waxaana ay isaga soo baxeen maanta gelinkii hore wararka ayaa sheegaya in muddo 3 bil ah aysan qaadan wax mushaar ah oo ay ka maqan tahay xuquuqdooda ciidankan oo watay gaadiidka dagaalka ayaa muddo u xirneyd wadada iyagoona joojiyay dhaqdhaqaaqii gaadiidka ee wadadaasi oo ku dhow xarunta taliska nabadsugadda gobolka Banaadir iyo tan xarunta dhexe ee NISA ee Habar Khadiijo saraakiil ka tirsan NISA oo markii dambe ku soo baxay cabashadan ayaa ku guuleystay in ciidamadan ay ku qanciyaan inay joojiyaan xanibaadda isla markaana ay heli doonaan xuquuqdooda madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle Axmed Madoobe iyo Waare ayaa iyagoo careysan isaga baxay kulan hadda ka socday madaxtooyada shirka Muqdisho gaar ahaan Villa Soomaaliya maalintii afraad uga socday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lugta la galay marxalad kale oo adag kadib markii aan xog ku helnay in qaar ka mid ah madaxda shirka ay isaga baxeen iyagoo careysan wuxuu markii hore bashirka ku bilowday kala aragti duwanaan madaxda u dhaxaysay oo ku saabsan qodobada laga doodayay ee arrimaha doorashooyinka salka ku haya waxaase labadii maalin ee u horeysay xal loo helay in la isla fahmay dib ugu laabasho lagu sameeyo heshiiskii Dhuusamareeb 3 iyo in shirka uu Muqdisho ka sii socdo iyadoo markii hore madaxda qaar ay ku doodayeen haddii heshiiskaasi dib loogu noqonayo la aado magaalada Dhuusamareeb qorshaha saacadihii u horeeyay ee shirka Muqdisho ka socda wuxuu ahaa isfaham la gaaro lana soo saaro qodobada heshiiska talaadadii shalay balse ma noqon oo qodobo ay ka mid yihiin kaalinta guddiga doorashooyinka ee farsamada doorashada soo socota iyo go'aanka gaarista magaalooyinka ee doorashada xildhibaanada ka dhacayso ayaa lagu kala fogaaday ila wareejo ku sugan Villa Soomaaliya ayaa Fagaare Production u sheegay in maanta shirka lagu balansanaa dood adag balse uusan gabi ahaanba tagin madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni halka muddo kooban oo ay shirka joogeen kadib isla maanta iyaguna ay isaga baxeen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Hirshabeelle Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare dhammaan waxaa lagu sababeeyay in ay salka ku hayso khilaafka madaxda ee qodobada laga doodayo sidoo kale waxay wararku sheegayaan in inta badan madaxda maamul goboleedyada ay ka midaysan yihiin in guddiga doorashooyinka kaalintooda la wiiqo bedelkeedana ay iyagu maamul wax ku yeeshaan balse uu diidan yahay midaasi madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale waxaa dhammaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxda kale ay isku raaceen in aysan suurtagal ahayn nidaamka xisbiyada badan ee ku qornaa heshiiskii Dhuusamareeb 3 war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed ayaa lagu sheegay in degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose aysan ka qayb gali karin tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir wasaaradda ayaa sheegtay inaysan jirin casuumaad rasmi ah oo uga timid maamulka Banaadir oo ah in degmadaasi ay ka qayb gasho tartanka ciyaaraha degmooyinka waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu xusay in guud ahaan degmooyinka Koonfur Galbeed aysan ka qayb gali karin ciyaaro aysan si rasmi ah ugu matalaynin maamul goboleedkaasi tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir oo sanad walba la qabto ayaa lagu wadaa in dhawaan uu ka furmo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maktabka siyaasadda iyo xiriirka gobolada ee al-shabaab ayaa isbedel dhinaca maamulka ah ku sameeyay gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana xilka laga qaaday gudoomiyihii gobolkaasi Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise kaba ku tukade iyadoona lagu bedelay Sheekh Cabbaas Abu Maxamed sida ay qortay warbaahinta taageerta shabaab kulan ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe deegaana ka tirsan ayaa lagu go'aamiyay xilka qaadistan lagu sameeyay Sheekh kaba ku tukade waxaana xilkaasi lagu wareejiyay Abu Cabbaas
kaba ku tukaday ayaa ka mid ahaa guddoomiyaasha ugu waqtiga dheeraa ee dhinaca gobolada wakiil uga ahaa ururka al-shabaab. lama oga sababta xilligan keentay in xilka laga qaado sarkaalkan oo muddo wakiil uga ahaa shabaab gobolka Shabeellada Dhexe. al-shabaab ayaa inta badan gobolada dalka waxay ku leeyihiin wakiilo qaarkood aanan tegi karin goobaha ay ku magacaaban yihiin balse maamul ahaan isaga magacaaban. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kulan gaar ah maanta la qaatay waxgaradkii siyaasiyiinta qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa ka codsaday in sanadkan lagu taageero sidii uu u gelin lahaa madaxtooyada Soomaaliya una noqon lahaa madaxweynaha xiga ee 4 sano soo socota hogaamiye dalka. beelaha uu la kulmay siyaasiga daqaraha badan ka soo gaaray dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah waxgaradkii siyaasiyiinta beesha Mudulood oo uu ka dalbaday inay ku gacan siiyaan hamigiisa ku aadan helista xilka ugu sareeya dalka sida aan xog gaar ah ku helnay. dadka qaar ayaa qaba in Cabdiraxmaan Cabdishakuur uusan ka gadmaynin shacabka Soomaaliyeed maadaama laga diiwaangeliyay hadallo qaarkood oo u muuqday kuwo gef ku ah qayimka bulshada iyo diinta Islaamka isla markaana lagu suntay inuu qayb ka ahaa raggii iibsaday badda Soomaaliya. waxgaradkii uu la kulmay hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa u ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan isla markaana kaalintooda uusan ka waayi doonin xilka uu raadinayo ee ah madaxweynaha Soomaaliya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo lagu xanto inuu taageero dhaqaale ka haysto isu taga Imaaraadka Carabta ayaa ah musharaxa kaliya ee gooni u taagan kaasi oo aan ku lamaanayn xisbiyada kale sida xisbiyada UPD iyo Himilo Qaran oo ay kala hogaamiyaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed kuwaasi oo ku midaysan madasha xisbiyada qaran oo ka kooban 6 xisbi oo waaweyn. warkii galabnimo aad ka daawanayseen Caasimada TV waanaga inta daawade haddaad nagu cusub tahay soo dhawow oo subscribe saars fura gambaleelka si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. nabadgelyo.